السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغارت شرفت أنا كوسو دواد يوتيوب بيج كينا عوض وحسل فلاقيد دونا كلمدي عوض كوسو إدلاadي جامبيونز ليج كوحا جامبيونز ليج iyo kulamada waaweyn ayaa falaqan doona marka waad kusoo dhawaad youtube page keena like t-shirt subscribe ka noo saara haddii aan u gudo galno falaqaynta ciyaaraha xalay ciyaarihii la dheelay waxaa haddaan ka bilowno kooxaha Borussia Dortmund iyo Celtic ayaa waxay ku dheeleen guriga kooxda Borussia Dortmund kulankaas oo 7-1 ee Dortmund uga badisay Celtic ايش انا جامبيونز ليج انا حريص ما جرت سنتك waa la isku dhiibaa darsan la isku dhiibaa niman meeshaana waxa u soo baxay cunug yaro adayemi la dhaho oo hat-trick u dhaliyay Dortmund waa nimankaas caadi ma markan iyo waa Champions League sanadka waa kacsiin Celtic oo isdhahay xoogaa koox adag waaye waxay ku dhufteen 7 adayemi hat-trick oo ka kacay marka kulankaas waa kulan oo adag oo ahay 20 daqiiqo markay ciyaarta mareysayba nimanka waa la 20 daqiiqo aan adig kan bidu koowaad la buubsiyay Emre Can marka hore penalty loo dhigay oo 7 daqiiqo ciyaarta markay marayso penalty ka helay penalty loo dhigay uu dhaliyay haddana 3 daqiiqo kadib Adeyemi gool koowaad ka dhaliyay 29 daqiiqo haddana waxa Adeyemi mar labaad ka dhaliyay haddana penalty kale taa 44 daqiiqo marka 40 daqiiqo meelaas marka eed haddana waxa loo dhigay penalty kale ja kan bidu koowaad ciyaarta waxay ahayd bashani eber marka haddana Adeyemi hat-trick wuxuu ku dhaliyay kan bidu koowaad Adeyemi hat-trick ku dhaliyay marka nimanka waxa waaye بدلي حبيس السماء استعانوا معنا يقولوا شيء يدك سي بدن لكن تضبع لك يسدح كلا لو سيدر كان بيده كلا هل كاسو حقوش كرة على كوحدة بروسيا دورتموند هذا هو جزء من السوق لو حد ليلهين كوحة وين باير ليفركوزن اس اي ميلان ليلهين نكي شاف الونسو هاي وحاول جوشي سي سنة كهراء او جولي او جاره ومشي سكسي وضع نمكي اس اي ميلان هالي ابر حال او بدي وحاول نكاس اس اي ميلان ولي بالتيم ادق وضعته ابراهام iyo بولوسيج فافانا ليو بلا دون wadto uu ka badiyay wali eber uu badiyay marka nimankaas caadi ma goolkaas waxa uu dhaliyay noobaha kooxda Bayer Leverkusen Bonfic halkaas gool u dhaliyay ciyaartan wuxuu ku soo idlaatay hal iyo eberkaas sidoo kale xalay waxa dheelay kooxda weyn ee Man City waxay u baxday koox Slavia Bratislava Slavia Bratislava kooxda u baxday waxay ugu badasay 4-1 Haaland gool uu ka dhaliyay Foden waa dhaliyay isheeg Gundogan penalty u dhaliyay ama penalty ma Gundogan caadi u dhaliyay 8 daqiiqo ciyaarta markay mareysay goosh koowaad baa bilaabo Gundogan goosh koowaad 15 daqiiqo haddana Phil Foden Haaland 58 daqiiqo markay mareysay cunug yaro gadaal laga soo geliyay xitaa oo John Mikatil gooshiisa oo dhashaday halkaas waxay guush ku raacday kooxda Man City 4-1 waxa sidoo kale xalay dheelay kooxdii weyneed ee Barcelona oo u baxday Young Boys niman la dhaho kulankaas oo 5-1 ee Barcelona ku dhufatay FC Young Boys Lewandowski xalay wuxuu dhaliyay 2 gool u dhaliyay Rafinha gool u dhaliyay Martinez mid la dhaho asna gool u dhaliyay marka nimanka waa kacsan yihiin waxa sanadka Barcelona inuu line up fiican ay haystaan afkor Lewandowski oo kulan walba gool u dhalinayo joogo xalay waxay dheelsiiyeen Rafinha Rafinha asagana gool u dhashaday Yamal cunug yaraa wax ma dhalin laakiin waa assist uu sameeyay la bedelay marka meesha guush wuxuu ku raacday kooxda Barcelona 5-1 sidoo kale xalay waxa dheelay kooxii kulanka ugu adag wuxuu ahay kulankii dhaxmaray Arsenal iyo Paris nimanka Arsenal aan mar raadin sheegay calaamadood la haysan karnay miisaanku culus yihiin nimankaas faraha laga qaadaa sanadkan koob ay rabaan 2 sano koob la'aan ku dhacday sanadkan ama Premier League ama Champions League rabnaa leeyin labi eber PSG loogu badiyay kor ilaa ugu dheer ma aamine waxa waaye Havertz iyo Bukayo Saka goolish u kala dhaliyeen baalki Arsenal waliba 20 daqiiqo markay mareysay Havertz goosh koowaad dhaliyay Trossard ka caawiyay goolka labaadna Bukayo Saka dhaliyay gool caadi ahayn marka nimankaas waxa waa daafacooda khadkooda dhexe shub waay weerarkoodana Havertz iyo Trossard ayaa lagu qaraabanaa gool laga dhalinaa هذا نواب وين أسويه عيال كاس أنا ما كاس نواب بوحين فلسنين الله قولش كادلنا يوم حالي بارتي ديكلان رايس مارتينيلي كل ولا سوق لي ساكا أفكار قدال نسكيب الدافع سيد الوي غنيت ماشي تقولش وحكون راعي قاعدة قاعدة أرسنال مركا أنا ما كان بي اس جي عثمان ديمبélé أول بأورنا وحي وطن سيجنا وتبرع جديدين وعيرسيو سو مركا waxa ciyaaryahan weyn oo macnaha hadda oo la sheegi karo oo ayaga macnaha oo maanta ku duulaa ma wadaninba daafacyada wuxuu roonayo Hakimi iyo Marquinhos iyo watin xogaa iyo Donnarumma iyo Porter ku jiray
yarkaan neefis la dhahaa asiga kubad fiican uu soo bandhigay laakiin afka horete baasha eber ka tahay haddii saa weerar fiican aadan haysan maxay ku tare mid barcola la dhaho zero waa horta wax uu gala markaas iyo dow iyo league war waxa saddexda hore joogto isma dhaanta waa nin marka waxa waa PSG waa ku daysay Arsenal la eber ku badasay kulankaas kulan weyn u ahay marka waxa waa Champions League kulamada la halaasay ahaayeen waxaa sidoo kale habeen dambe dheeli doono sidoo kale waxa dheeli doono kooxaha waaweyn waxa dhiman Real Madrid dheeli doonto FC Lille u bixi doonto Liverpool dheeli doonto Bologna u bixi doonto Juventus dheeli doonto RB Leipzig u bixi doonto yaa kale dheeli doono Girona ay xataa dheeli doonto Feyenoord u bixi Aston Villa iyo Bayern Munich dheeli doono kulan adag oo Premier League arki doono odagay ma basada xirnay Vincent Kompany oo la arki doono inuu kooxaha Premier League dardar karay in kaleeto soo koox adag wato Atletico dheeli doonto oo Benfica u bixiso Real oo ay sheegnay Liverpool ay sheegnay marka intaas dheelayaan ayagana faaqiidadooda waa gali doonaa haddii aad si saadaalina marka kulamadaas oo dhici doono si anaga hada qiyaaseen Real Madrid Lille way ka badan doontaa oo ugu yaraan waxa waaye 3 gool iyo wax ka badan ugu badan doontaa Liverpool sidoo kale Bologna ayadana sidoo kale 3 gool iyo wax ka badan ugu badan doontaa Juventus iyo RB Leipzig anay barbardhac ama gool dirqiya oo Juventus ay ku raayso qiyaasa waxa sidoo kaleeto Girona iyo Feyenoord almost waa iska dhaween laakiin Girona guusha siina Aston Villa iyo Bayern Munich marka aniga meesha arab waxa Aston Villa waxa aaminsanahay nimankan Bayern Munich inay iska cili karaan ama barbardhac ku soo qaban doona ama ba ka soo raayi doonaan balaas guriga Aston Villa lagu dheelaa mugti marka Aston Villa caabinda wax weyn ay ka sugaa ay caabina Atletico Madrid wana siina 2-1 Benfica u buuxisa marka intaas waa kooxaha dheelaya habeen ka sii dambeysana Europa League xabal Leeds United iyo dheeli doonaan oo FC Porto bixis ayagana waa soo falanqeyn doona halkaas ayaanu ku soo gabagabeynayna falanqeynteeni kulamadii xalay ka dhacay Champions League iyo habeen daba ka dhacay macna maanta ka dhacay Champions League iyo sidoo kale ta ka dhici doona cawada kulamada haweenka ay harsan yihiin adika maxdiilata kulamada cawada dhici doona inay ku soo dhamaad doonaan kulamadii oo la soo dheelayna maxaa idinka baxay nimankii ahay Dortmund iyo goolashan faraha badan ku badinayso iyo ishak iyo Man City iyo ayadana goolal badan ku badisay sidoo kale Barcelona Man City Barcelona nimankaas Champions League ma qaadi doonaan ay kula tahay iyo Arsenal sidoo kale ayadana Champions League ma qaadi doonaan waxay kula tahay commentigan wala soo wadaag like share subscribe waa anaga baqiilna u baahan wax lacag idinka gadan maahan nagu taageeranayo page-kiina waay page ciyaaraha kooxaha dhan aan ku soo tabino waay marka video waa fiirsatiin laakiin macnaha share-ta iyo like-ta iyo subscribe-ta waa hilmaantiin mar walba waa naga hilmaantiin yaan la hilmaamin lacag maaha wax kaaga baxay ma sadaqa kugu tahay hadaan noo samaysid marka bilis waa idin ka codsanaynaa janaalkiina waaye taageerada hanaga hilmaamina ognahay waa jeceshiina taageertiin laakiin mar walba waa hilmaantiin waa idin xasuusinaa video marka intaada ka bixin subscribe noo saar maalin walba video inta qof fiirsato 10% kamid ah subscribe noo saartaan 20% kamid meel fiican oo noo gaara marka intaas ay idin leeyahay wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh